waxa weeye sida aad la socotaan magaalada Addis Ababa iyo nawaaxigeeda waxaa degan dad Soomaali oo aad u tiro badan oo muddo badan deganaa dadkaas Soomaaliyeed ayaa muddadii ay deganaayeen aan haba yaraatee helin adeega guud ee dawladda Itoobiya ay fidiso ay bulshada qaybaheeda kala duwan u fidiso marka dhibaatooyin badan iyo cabashooyin badan oo loo soo gudbiyay awgeed shir weyn oo ballaaran oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaan soo qaban qaadnay shirkaas oo ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida ardayda iyo dhalinyarada hooyooyinka culimo-diinka aqoon-yahanka dhammaan iyo ganacsatada halkaas oo 1000 ilaa 1200 oo qof ay shirka ka soo qayb galeen ujeedada loo qabtayna waxay ahayd in duqa magaalada Addis Ababa injineer Taakale Umma lagala xaajoodo dhibaatooyinka Soomaalida ka haysata Soomaalida gaar ahaan xaafadda Boole Mikael iyo meelaha ay u badan yihiin population ahaan marka la fiiriyo 70% weeye ganacsiga aaga ka jirana 90% bay Soomaalidu gacanta ku haysaa dhibaatooyin badan oo aan la soo koobi karin dadka Soomaalida way gaadhay saa darteed ayaan u ballaminay duqa magaalada si looga xaajoodo dhibaatooyinka ay Soomaalidu sheeganayaan sidii xal loogu heli lahaa gudoomiye guddiga loo xil saaray dhibaatada Soomaalida degan Addis Ababa yay isugu jiraan ma dad Soomaali ahba mise dad Ethiopian ah waxaa laga hadlayaa dad Soomaaliyeed marka dad kale oo Ethiopian ma soo galin guddidaas ayaa waxa ay ka kooban yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ka kooban tahay 3 dumar ah hooyooyin iyo dhalinyaro isugu jira iyo 4 raga oo aqoon-yahan ardayda iyo culimo-diinka iyo ingargaadka isugu jiraan guddiga aad magacaawdeen ma yihiin guddi xalin kara arrimahaas aad soo tirisay waxaan ku rajo weynahay inay xaliyaan oo iyagoo la kaashanaya duqa magaalada Addis Ababa ama Finfinne isla markaana qoraal ahaan baa lagu gudbinayaa toddobaadka soo socda afna waa looga sheegay kadibna qodob walbana sidiisa ayaa la isu duristaagi doonaa si wada jir ayaa loo xalin doonaa haday ka soo bixi waayeen dadka Soomaaliyeed ee maanta ku doortay madashii shirku ka dhacayay yaa insha Allah ka tashan doona haday ka soo bixi waayeen hawshooda waana la bedeli karaa